Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan waxaan kuu rajaynayaa maalin qurux badan kuu tahay waxaad ku soo dhawaataa bartayda YouTube-ka waxaan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad muuqaalada u daawanaysaan misena aad u subscribe garaynaysaan muuqaalkayga maanta waxaan rabaa inaan dhalinyarada halkan uga diro baraarug halkan aan uga diro dhiirigelin dhiirigelintaasi oo dhab ahaantii aan isdhahay dhalinyaradu way u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed gaasatan dhalinyarada ku sugan dalka marka la joogo dalka dhalinyaro badan aan jirto dabcan oo wax soo bartay kuwa hadda waxbarashada ku jira iyo kuwa hadda rajaynaya inay ama wax bartaan si ay horumar u gaaraan marka waxaan rabaa inaan kula wadaago waxay tahay haddaad shaqo doon tahay ayaad rabtid inaad shaqaystid ayaad rabtid inaad mustaqbal dhisatid ayaad rabtid in noloshaada iyo tan reerkaaga aad maaraysid marka maxaad u baahan tahay horta nidaam ayaa jira nidaamkaasni waa nidaam waxbarashada aasaasiga waxbarashada aasaasiga qofka markuu baranayo wuxuu u baranayo waa in uu ku manaafaco waa inuu ku shaqaysto waa inuu wax ku soo saarto noloshiisa iyo tan reerkiisa iyo mustaqbalkiisa uu maaragtay wax ku qabsado marka waxaad wax u baranaysidna waa wax qabsi wayna wanaagsan tahay in qofka dhalinyarada ama qof walba qofku yahay lagu dhiirigeliyo waxbarashada intaas waa waxyaabaha ugu muhiimsan si maaragtay bulshada ay kaga baxda jaahilnimada iyo mugdiga iyo dhibaatooyinka iyo wax walba markaasi bulshada dib u dhac u keeni kara markaan usoo laabanno dhanka shaqada waxaa laga yaabaa inaad ku taamaysid shaqo gaar ah inaad qabatid in aad ka shaqaysid bank ama inaad la shaqaysid dowladda ama inaad ka shaqaysid hay-adaha waaweyn ee dalka iyo shirkadaha waaweyn weliba marka waxa aad baranaysid waxaad ku baysgaraynaysaa in aad biritu wax ku qabsatid dhammaantaas waa isku raacsannahay waana wax saxa bal ka waran haddii wixii aan bartay aan ku shaqaynaynin amaba aanan helaynin shaqadii aan waxaan u bartay ma waxay noqonaysaa in aan isdhiibo ma waxay noqonaysaa inaan sugo ilaa aan ka helayo shaqadii aan waxa u soo bartay dabcan fikirkaas wuu qaldan yahay oo way jiraan dhalinyaro fikirkaasi aaminsan dhalinyaro ku jiifta in ay heli doonaan shaqadii iyo wixii ay barteen inay isku waafaqaan marka haddii ay caqabadaas ku haysato ama fikirkaas aad qabtid dhab ahaantii ma cadda wakhtiga saxda ee aad shaqo bilaabaysid balse waxaa jira haddii aad bedeshid fikirkaasi ee aad qaabka aad u fikiraysid qaab ka duwan aad la imaatid in aad shaqaylaysid ama aad shaqaysan kartid ama ha noqoto inaad company qayb ka noqoto ama ha noqoto inaad dowladda qayb ka noqoto ama hay-adaha ha noqoto amaba sidoo kale ha noqoto in aad adigu si madax bannaan u shaqaysatid marka dhalinyarada wax bartay ee dalka ku sugan ee haysta bajularka ama double bajular ama masterka inay fikirkan bedelaan shahaadadu waa wax loo baahan yahay inaad wax baratid taa maaragtay noloshay qayb ka tahay laakiin waxaa jira waxyaabo aad wax ku soo saari kartid si aad u noolaatid sida in aad xirfado baratid weliba xirfadaha gacanta inaad baratid haddii aad iskala weyn tahay maskaxdaada ay ku jirto
anigoo master ah, anigoo bachelor ah, anigoo kan ah ayaa shaqo hoose ka shaqaynaya ama xirfad hoose ka shaqaynaya. Waxay qaadanaysaa sanado badan inaad horumar gaartid. Sanado badan ayay kugu qaadanaysaa inaad horumar gaartid ee aad ka baxdid mushkiladda ama dhibaatada shaqo la'aaneed ay ku haysato. Marka haddii aad jaamacad soo dhammaysay guriga ha iska fadhinin, xaafadda iska joogin, meelaha waqti ku dhumiska ha tegin, waqtigaaga ha ku luminin. Waxaad xoogga saartaa oo focuska saartaa in aad xirfado baratid ee aad dhistid aqoontaada, skillskaaga, ee aad baratid xirfado cusub. Xirfado badan oo waxaa jira maanta boosas ay ka bannaan yihiin oo loo baahan yahay dad ka shaqaysta, wax ka soo saarta. Marka haddii aad dhalinyaro tahay, dalka aad ku sugan tahay, aad ka cabanaysid shaqo la'aan, waxaan kugula talinayaa haddii aad rabto inaad mustaqbalkaaga dhisatid, inaad horumar gaartid, inaad skills baratid. Skillskaas aad baranaysidne yaysan noqonin 1 ama 2 ama 3 yaysan noqonin. Intaad bara kartid baro. Waxaa laga yaabaa skills aad baratay ama xirfad aad baratay in aad shaqo ku heli weysid. Waxaa laga yaabaa marka in caqabad bay kaa hor istaagto xirfaddii aad baratay inay kuu shaqayn weyso inaad wax ku soo saaratid. Marka haddii aad dhalinyaro tahay, xirfadahaaga kobci, xirfadahaaga badi, baro sida tubiistanimada baro, sida guryaha biyaha loo geliya baro. Waxaad barataa korontada baro, qaabka korontiista loo noqdo baro, qaabka korontada u shaqaysa baro. Waxaad barataa muuqaal samaynta baro, sawir qaadista. Sidoo kale waxaad barataa graphic designka baro. Yacni waa skills waxaas. Sida website-yada loo dhiso maanta haddii aad baratid, lacag ayaad ka samaynaysaa, wax ayaad ka soo saaranaysaa. Waqti gaaban waad shaqaynaysaa, lacagna waad helaysaa. Noloshaada iyo tan reerkaaga way kaafinaysaa. Balse haddii aad xirfad baranin ee aad jaamacaddii aad ka soo baxday sugaysid in aad ku shaqaysid wixii aad jaamacad kaga soo baxday, waqti bay qaadanaysaa brother. Waqti bay qaadanaysaa. Waxaan xasuustaa hadda muddo laga joogo 13 sano ka hor ayaan anigu bedelay go'aanka maanta hadda adiga ku taagan tahay. 13 sano ka hor ayaa bedelay go'aanka aad adigu maanta ku taagan tahay. Ayaad leedahay waxaan bartay waan ku shaqaynayaa. Waxaan rabaa inaan shaqo sare ka shaqeeyo. Waxaan rabaa inaan banki ka shaqeeyo. Waxaan rabaa inaan u shaqeeyo shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta dalka. Waxaan rabaa inaan hay'ado u shaqeeyaan. 13 sano ka hor ayaan bedelay fikirkaasi. Go'aankii maalintaasi aan qaatay ayaa ii shaqeeyey oo Ilaahay ila garab galay. Inaadan qofna shaqaale u noqonin, aan anigu shaqaysto. Waa dadaalay, juhdi baa geliyey, dabar adeeg baa geliyey, Ilaahay wuu igu guuleeyey. Taa waxaan kuu leeyahay oo aan kugula wadaagay waxay tahay in adigana aad fadhiga ka kacdid, in adigana aad isbeddel la imaatid. Waayo haddii aad ku jirtid goobaabada ama circle-ka waxa loo yaqaan ee aadan dibadda kaga bixin, way adkaanaysaa inaad wax qabsatid. Waayo waxaad ku jiraysaa goobaabadaas ku jiraysaa. Marka si aad wax u qabsatid, dhalinyaronimadaada kaga faa'iidaystid, qof wax soo saar leh noqotid, waa inaad circle-ka ka baxdid. Waa inaad bedeshid fikirkaaga. Waa in aad bedeshid wax kasta oo aad leedahay noloshaada, mustaqbalkaaga dibdhac ayay u keeni karaan. Waa inaad bedeshaa si aad horumar u gaartid. Dabcan fariintan waxaan kugula wadaagay waxay tahay qofka haddii uu u bareero inuu wax qabsado
wuu qabsan karaa. Kaliya wuxuu u baahan yahay dadaal, dabar adeeg iyo maxaa la yidhaahdaa inuu rabbigiisa tala saarto. Marka walaal waxaan ku leeyahay fadhiga ka kax. Fadhiga ka kax. Haddii 2024 aad guriga fadhisay, 2025 bishii 3 ayaa dhammaad ku sii socotaa. 3 bilood ugu dambeysay 2025 maxaa kaaga qabsoomay? Xirfad cusub ma baratay? Bise weli meeshii baa fadhisaa. Marka mustaqbalkaaga adiga oo keliya ayaa hormarin karaa. Mustaqbalkaaga, shakhsiyadaada, qofnimadaada qofka hormarin kara waa adiga. Haddaad sugaysid inuu qof shaqo ku geeyo, haddaad sugaysid in ma aragtay ilma adeer iyo qabiil iyo reer hebel iyo shaqo lagugu geeyo, amaba haddii aad sugaysid in aad halka ugu sarraysa aad shaqo ka bilowdid adigoo xirfad lahayn, skills lahayn ee haysta keliya digriigii jaamacadda, waxa waaye wax horumar kama gaaraysid nolosha. Shaqadaasi aad maanta ku taamis inaad ka shaqaysid berrito haddii lagaa soo ceeriyo ama uu dhammaaday heshiiskii aad kula jirtay, waxay noqonaysaa inaad halkii ka soo bilowdid ama aad waqtigii aad shaqada sugaysid waqti la-eg aad shaqadii sugtid. Marka inaad wax qabsatid ku dadaal, inaad shaqaysid ku dadaal, aqoontaada dhis, xirfadahaada dhis, wax kasta way ku hagaagayaa saaxiib. Marka muuqaalkan ayaan jeclaystay inaan kugu gubaabiyo oo aan kugu dhiirigeliyo misana aan kula wadaago in qofka hadduu fikirkiisa bedelo uu wax qabsan karo. Marka haddii halka soo gaarto waxaa kaa codsanaya inaad la wadaagtid saaxiibadaada, welibana aad ku soo biirtid bartiida YouTube-ka, wixii faalaana aad iigu reebtid qaybta commentiga inaad iigu reebtid. Waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. waa inoo muuqaalka xiga.